walaalka muslimka ah hooyada adiga ku dhashay haday nooshahay oo joogto waxay hooyada kaaga baahan tahay qalbigeeda inaad dhisto baari u noqotid warkeeda maqashid la tashatid ku xidhnaatid wax tartid bariidisid ku dhadhawaatid la sheekaysatid la saaxiibtid hooyada qalbigeeda inaad qalbigeeda ilaaliso oo qalbigeeda dhisto qalbigeeda kabto waajib ay kugu tahay walaasha kula dhalatay walaalka kula dhashay xaaska ku dhaxday ilaahay ubadka kaasiya aqalka ku joogto kulligoodba waxay u baahan yihiin qalbigooda inaad ilaaliso qalbigoodana aad kabto hadii wax ku yimaadaan ehelkaaga qaraabada iyo riximka aad ka dhalatay xaajada iyo baahiyaha iyo duruufaha ku imanaya inaad wax kala qabato kabto walaalaha muslimiinta dadka jiiraanka ummadda meel kugula nool cidii ku soo mudataa intuba iyaduna waa caynkaas oo kale waana arrin wanaagsan oo rasuulku sallallahu alayhi wasallam habdhaqankiisa taariikhda siirada markaad fiiriso ajaa'ib bay leedahay الفردوس الأعلى marka jabru الخواطر dadka in khawaatirtooda iyo dareenkooda iyo qalbigooda la kabo oo qalbiga loo dhiso waa shay kamid cibaadaadka ilaahay loogu dhawaado waa shay cibaada way ilaahay loogu dhawaanayo dadka quluubtooda oo qalbi jabka ku yimaada la kabo si qalbigoodu dadku u dhismo oo aanay u quusanin oo hadii ilaahay ku roon yahay dadku aanay ugu imanin qofku inuu iska fadhiisto oo niyad jabo sida awgeed ba shariicadu waxay ka dhigtay shay cibaada oo cibaadaadka ilaahay loogu dhawaado kamida inaga dhaqankeena marka la eego mujtamaceena iyo deegaan ahaan runtii ma garanayno arrinkaasi muhiimadda uu leeyahay badankeenu dadka qalbiga loo dhiso oo maxaan ku niyadda loo dhiso qofkii masaa'ib iyo hawlo la soo gudboonaadeen oo qalbiga loo dhiso waa mas'ala inaga tabcigeena iyo dhaqankeena iyo macaamilkeena aan ku dhex badnayn kuma dhex jirto nasiib badan kuma laha arrintaas dabci yara adag hadal adag bay'ad adag weeyaan inaga waxaynu sida awgeed ba waxay muhiim tahay marka in la isku baraarujiyo oo laga hadlo